shiinaha iyo reer galbeedka waxa ay juhdi xooggan ku bixinayaan loolan sirdoon, xatooyada xogta xasaasiga ah, jawaasiis tirabeel ah iyo weeraro elektaroonig oo aan xad lahayn. Mareykanka, Yurub iyo inta badan dalalka NATO ayaa 5 sano ee la soo dhaafay waxa ay muujinayeen cabsi badan oo ay ka qabaan sirdoonka dawladda Shiinaha, ganacsiga, siyaasadda, diblomaasiyadda, militariga iyo ugu yaraan dhinac kasta oo nolosha ah ayaa Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku eedeeyeen Beijing in ay ka basaasayso. Tusaale, dawladda Britain ayaa sheegtay in basaasiinta Shiinuhu ay beegsadeen mas'uuliyiinteeda xilalka xasaasiga ah ka haya siyaasadda, gaashaandhigga iyo ganacsiga, taasoo qayb ka ah howlgallada basaasnimo sii kordhaya ee lagu raadinayo siraha dawladaha waaweyn. Dhawaan, cilmi baare ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska oo la eedeeyay ayaa beeniyay in uu yahay basaas u shaqeeya Shiinaha. Bal qiyaas, haddii mas'uuliyiintii u shaqeynayay dawladda Ingiriiska looga shakinayo in ay Shiinaha basaasiin u yihiin. Shiinaha ayaa si isdaba joog ah u dhaleeceeyay eedeymahan, waxaana afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha uu sheegay in gebi ahaanba ay yihiin kuwa aan sal iyo raad toona lahayn eedeymahaas. Waxaa la ogsoon yahay in sirdoonka Shiinuhu uu u shaqeeyo si ka duwan qaababka kale ee hay'adaha sirdoon ee caalamiga ah. Waxa uu ku lamaansan yahay wasaaradaha ku shaqada leh amniga iyo ciidamada ee dalkaas, oo ay ugu horeyso wasaaradda ammaanka. Wasaaradda amniga ee Shiinaha waxa ay fulisaa howlo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan in ay isku dayaan in ay saameyn ku yeeshaan siyaasadda arrimaha dibadda ee dalalka kale. Marka lagu daro ururinta macluumaadka ku saabsan siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga, dhaqdhaqaaqyada saameeya Shiinaha iyo la socodka howlgallada sirdoon ee ku wajahan Beijing, daraasaynta taariikh nololeedka siyaasiyiinta ajnabiga ah iyo saraakiisha sirdoonka, gaar ahaanna kuwa gacanta ku haya faylka Shiinaha ee waddan kasta. Ururinta macluumaadka ku saabsan muwaadiniinta Shiinaha ee dibadda jooga iyo ugu dambeyntii soo helidda iyo gudbinta macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan awoodaha teknoolojiyadeed ee wadamada shisheeye. Muddooyinkii dambe sirdoonka Shiinuhu waxa uu xoogga saarayay Washington. Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay Oktoobartii la soo dhaafay in la xiray sarkaal hore oo ka tirsanaan jiray sirdoonka militariga Mareykanka, waxaana lagu eedeeyay in uu isku dayay in uu Shiinaha u gudbiyo xog la xiriirta difaaca qaranka Mareykanka. Joseph Daniel Smith oo ahaa 29 sano jir waxa uu ciidanka ka soo shaqeeyay bilowgii sanadkii 2015 ilaa bilowgii sanadka 2022. I am an American soldier. Waxaana uu si gaar ah uga soo shaqeeyay guutada sirdoonka militariga ee 109aad oo fadhigeedu uu ahaa gobolka Washington, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda. Sanadkii 2022, wax yar kadib markii uu ka tagay shaqada ciidanka, Smith waxa looga shakiyay in uu la xiriiray qunsuliyadda Shiinaha ee Turkiga. Kadibna uu la hadlay laamaha amniga Shiinaha isaga oo adeegsanaya email, waxaana uu siinayay macluumaad ku saabsan difaaca qaranka Mareykanka. Bishii Maarso 2020, waxa uu u safray Hong Kong, halkaas oo uu ka sii waday isku daygiisii ahaa in uu bixiyo macluumaadka sirta ah ee uu helay intii uu ku jiray sirdoonka militariga. Smith waxa uu u soo bandhigay sirdoonka Shiinaha qalab uu gacanta ku hayay oo ogolaanaya in la galo shabakado kombiyuutarro militari oo uu Mareykanku leeyahay. Sirdoonka Mareykanku waxa uu sheegay in askarigoodii hore uu ku sii sugnaa Shiinaha, gaar ahaanna Hong Kong, ugu dambeynna halkaas uu ka raacay diyaarad uu ku soo gaaray San Francisco, halkaas oo ay ku qabteen kadibna ay ku xireen. Saraakiisha amniga qaranka ayaa iyaga oo u digaya u sheegay dadka lagu aaminay macluumaadka la xiriira difaaca qaranka in ay waajib ku tahay in ay sii wadaan ilaalinta iyo dhowridda xogaha qaranka, isla markaana aan loo adeegsan wax ka baxsan xayndaabka adeega ay u hayaan dawladda. Bixinta siraha qaran ee Mareykanka ayaa lagu mutaysan karaa xabsiyo muddo dheer ah. Shiinuhu halkaas kuma ekaan, waxaana uu walaac aan la qiyaasi karin uu ku hayaa dhammaan hay'adaha sirdoonka Washington heerarkooda kala gedisan. Bishii Agoosto ee 2023, mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa xiray 2 askari oo ka tirsanaa ciidamada badda oo ka shaqeynayay California, waxayna ku eedeeyeen in ay macluumaadka sirta ah u gudbinayaan Shiinaha. Mareykanka oo kaliya ma aha cidda cabanaysa,
hindiya ayaa si hoose ugu sheegtay shirkadahooda in ay iska ilaaliyaan isticmaalka qalabka isgaarsiinta shiinaha ayaga oo ka baqaya in ay leeyihiin awood basaasnimo oo lagu dhex dhisay agabkaasi. sidoo kale waaxda sirdoonka iyo falanqaynta hindiya waxa ay aaminsan tahay in shiinuhu uu adeegsanayo 10 xarumood waxbarasho oo uu ka sameeyay Nepal meel u dhow xadka hindiya kuwaasi oo loo adeegsado ujeedooyin basaasnimo oo ka dhan ah hindiya. bishii Agoosto 2011 markab cilmi baaris ah oo shiinuhu uu leeyahay oo isu ekaysiiyay markab kaluumaysi ayaa laga helay xeebta jasiiradda Andaman isaga oo xog ururin ku sameynayay aag juqraafi oo xasaasi ah. haddaba si taas ay uga jawaabaan Mareykanka iyo xulafadiisu waxa ay abaabulayaan howlgallo basaasnimo oo ka dhan ah Beijing. shiinaha ayaa sheegay in laamahooda amniga ay fashiliyeen howlgal basaasnimo ah oo sirdoonka Britain ee MI6 ay u adeegsadeen qof ajnabi ah oo ku sugan shiinaha si ay u ururiyaan sirta iyo macluumaadka qaran ee dalkaasi. wasaaradda amniga ee shiinaha waxa ay ku dhawaaqday in qof ajnabi ah oo la taliya u ahaa hay'ad shisheeye ah ay sanadkii 2015 sirdoonka Ingiriisku qofkan ay la bilaabeen xiriir sirdoonnimo ah. sirdoonka Britain ayaa markaasi ku amray Hung in uu galo shiinaha dhowr jeer waxayna ku amreen in uu aqoonsigiisii dadweyne u adeegsado marin habaabin si uu u ururiyo macluumaadka xasaasiga ah ee shiinaha kadibna uu ku wareejiyo sirdoonka Ingiriiska. dowladda shiinaha ayaa sheegtay in sirdoonka Britain ee MI6 ay Hung ku siiyeen tababaro xirfadeed gudaha Britain iyo meelo kale isla markaana ay siiyeen qalab gaar ah oo wax basaasa. baaritaan taxadar leh kadib laamaha amniga ee dowladdu waxa ay isla markiiba ogaadeen ku lug lahaanshaha Hung ee howlaha basaasnimada waxayna qaadeen tallaabooyin ka dhan ah basaaskaasi. sidaas ayaa lagu sii sheegay bayaanka dowladda shiinaha ka soo baxay. shiinuhu waxa uu qaadayaa tallaabooyin adag oo ka dhan ah khataraha ku imaan kara amnigiisa qaranka waxaana uu kashifay kiisas badan oo basaasnimo ah oo uu sanadihii u dambeeyay la kulmayay. dowladda ayaa sidoo kale uga digtay muwaadiniinteeda ku sugan gudaha dalka iyo dibaddaba khatarta ka dhalan karta in ay ku dhacaan falal basaasnimo ah. shiinaha ayaa sidoo kale bilaabay olole ballaaran oo ka dhan ah shirkadaha ajnabiga ah ee la talinta caymiska iyo daryeelka sababo la xiriira khatarta ah in la shaaciyo sirta qaranka taas oo walaac ku beertay shirkadaha ajnabiga ah ee ka shaqeeya dalka shiinaha. intaas ayaynu kusoo gunaanadeena muuqaalkan tan iyo warbixinada iyo muuqaalada kale ee xiga oo aanu soo diyaarin doono waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah halkan waa Itaal Media.